Assalaamu calaykum caruurey. Sheeko cusub ayaan baranaynaa maanta. Sheekadan waxaa lagu magacaabaa doqonkii caqliga badnaa iyo tuugii toobada keenay. Meel ku taala bartamaha Soomaalidii hore oo ay ku yaalaan geedo waaweyn oo ka mid yahay geedka yaaqa ayaa waxaa ku noolaa nin lagu magacaabi jiray Cabdi oo lagu yaqaanay fudaydnimadiisa ayaa waxa uu qoyskiisa kula noolaa guri iska yar oo tuulada geeskeeda ku yaala. Caqli xumadiisa walaac iyo layaab ay u ahayd dariskiisa iyo faamilkiisa, laakiin maadaama nolol adag uu horay ugu soo koray oo rafaad badan soo maray, taas ayaa waxay keentay inuu wanaag ka dhex arko qof walba oo uu la kulmo. Maalin galab ah oo qoraxda ay dhex rabtay, cirkan uu ekaa sida dahabka oo kale, ayaa nin aysan is aqoonin ayaa Cabdi u yimid. Ninkan oo lagu magacaabi jiray Cabdul wuxuu ahaa nin tuug ah, tuugaasoo ka daalay noloshiisa khiyaamada ahayd, rabayn inuu isbeddel ku sameeyo noloshiisa. Markaas ayaa ninka wuxuu ku yiri, gurigaas yar ma degan tahay, isagoo tilmaamaya guriga Cabdi. Haa, gurigaas anigaa degan, ayuu ku jawaabay Cabdi, isagoo dhoola cadeynaya sida qoraxda Soomaaliya oo kale. Markaas ayaa wuxuu u sii raaciyay, caawa gurigayga ayaad seexan kartaa haddii aad tahay nin musaafir ah. Cabdul oo la yaaban wanaagga ninkan ayaa fursad u arkay, wuxuuna u sii raaciyay, haa fadlan, dabcan. Wuxuu sidoo kale ku yiri, asagoo dhoola cadeynaya dhoola cadeen oo ay ka muuqato khiyaano inay ku jirto, waxaan ahay qof aad iyo aad daacad u ah oo daacadiis la wada yaqaano, nin runlow ayaan ahay. Cabdi ninka ayuu gurigiisa u soo waday. Soo gal guriga, wax yar oo aan qiimo lahayn ayaan leeyahay, laakiin wax yar oo aan haysto si fiican ayaan u qariyay. Ma u jeedaa meeshaas lacag ayaa iigu jirta. Taako kasta oo gurigiisa ka mid ah oo wax ugu qarsan yihiin ayuu ninkii tusay. Laga bilaabo geedka dhexdiisa ilaa meesha dabka lagu shito, wax walba ayuu tusay. Habeenkaas markii dadka tuulada degan ay wada seexdeen, ayuu Cabdul damiirkiisa soo laabtay. Kalsoonidii Cabdi u muujiyay ayaa aad u dhaqaajisay, wuxuuna ka xumaaday waayihiisii hore, ummadii wax uu ka xaday, dhibaatadii uu dadka u geystay. Wuxuu isla markaas go'aansaday inuu iskaga tago guriga Cabdi isagoo aan waxba ka qaadanin oo ka xadin. Laakiin inta uusan bixin, wuxuu ugu tagay boorso yar oo kaydkiisa ahayd, ayuu hoos u geliyay barkintii Cabdi uu ku jiifay. Arrintaas oo muujinaysay ixtiraamka Cabdi uu u qaaday. Subaxii markii la soo kacay, Cabdi wuxuu waayay ninkii xalay gurigiisa uu ku marti qaaday, laakiin wuxuu helay boorsadii yareyd ee Cabdul uu dhaafay. Wuxuuna fahmay wixii dhacay ayuu la wadaagay qoyskiisa, isagoo baray familkiisa cashir qiimo leh. Mararka qaarkood muujinta kalsoonida iyo aaminaadda ayaa waxay noqon kartaa cashirka ugu muhiimsan ee dadka qaloocan ay jidka saxda ah ku arkaan oo xumaantooda ka soo laabtaan. Caruurey, xikmadda sheekada ku jirta ayaa waxay tahay xikmadda Cabdi iyo isbeddelka Cabdul ku dhacay. Sheekada waxay markhaati u noqonaysaa awoodda naxariista, kalsoonida iyo suurtagalnimada in dadka xumaanta ka shaqeeya inay toobad keenaan oo ay ka soo laabtaan waxyaalaha xumaanta ay ku dhex jiraan iyo dembiyadii ay hore u samayn jireen, haddii loo muujiyo wanaag iyo soo dhoweyn meeshii mar walba xumaan iyo afxumo lagula dhaqmi lahaa. Caruurey, sheekadan halkan ay noogu eg tahay. Ilaa sheekadan aan kulmi doono, waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.